السلام عليكم soo dhawaada mar kale maanta waxaan isleegi doonaa jasiiradan yar ee ku taala dalka Japan ee lagu magacaabo Okinawa jasiiradan yar hadaba caan waxay ku tahay in dadka degan ay yihiin dadka ugu cimriga dheer adduunka markaad jasiiradan yar joogtana inaad aragto dad boqol ka dhaafay wax caadi ah ay ka tahay waxa laga helayaa boqolaal qof oo gaadhay da'da boqolka sida darteed ayuu ninkan u soo booqday si uu bal u soo ogaado waxa ka dambeeya amaba waxa ay cunaan iyo sidoo kale waxa ay sameeyaan si cimrigoodu u dheeraado subaxa ugu horeeya markuu soo tooso 6 barka wuxuu arkayaaba exercise-kan ay sameeyaan dadka da'da ah waxaan wax ka weydiinayaa exercise-kan islaantan inoo muuqata taasoo marka dambena uu gurigeeda u raacayaba si uu bal u soo ogaado waxyaabaha ay sameeyso marka ay ka timaado exercise-ka si fiican ayay u soo dhaweynaysaa cuntada ay siisan uu ka helay iyo waliba sida wax u karinayso islaantan kaligeed ayay soo diyaarinaysaa cunto dhan oo miiska ay ninka u soo buuxinaysaa iyadoo waliba da'deedu ay 80 ka dhaaftay marka ay cuntada cunayaan su'aalo ay weydiinaya waxaana kamid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee weydiinayo maxay tahay sirta ka dambaysa dadka magaaladan in cimrigoodu aad u dheeraado islaantuna waxay u sheegaysaa in xataa iyada oo gurigeeda joogta aanay marnaba fadhiisan oo dhaqdhaqaaqeedu aad u badan yahay shaqada gurigeeda badankana iyadu ay qabsato maalin oo dhan ay shaqaynayso oo aanay iska fadhin house they move they always moving around sidoo kale waxay u kala sheegayaan cuntooyinka ay islaantani kariso badankooda cuntooyin caafimaad leh ay u badan yihiin isagoo marka dambana ka horanaya bal ka waran waa sidee maadaama saaxiibada iyo adiga badankiinu da'diinu ay weyn tahay oo wax caadi ay ka tahay in cimrigu u dheeraado halkan iyadoo tusaale soo qaadanaysana waxay sidoo kale farta ugu fiiqaysaa hooyadeed oo iyada laftarkeedu ku dhimatay da'da 105 oo sawirkeedu halka sare ku dhagan yahay sidoo kale islaantan kale ayuu iyadana weydiinayaa maxaa sababay in dadka halkan ay cimrigoodu dheeraado iyaduna u sheegaysa jawaab lamid ah jawaabtii islaanta hore oo ay ka odhanayso badanka waanu shaqaynaa oo dadka nagu xeeran ayaanu la shaqaynaa mar kastana waxbaanu qabananaa iskama fadhinno haddaba jasiiradan ay ku nool yihiin ee Okinawa waxay ka kooban tahay jasiirado fara badan kuwaasoo isku xidhan waxayna dhacaan koonfur galbeed ee dalka Japan marka la eegayo caasimadda Japan waxa uga dhowba caasimadda dalka Philippines ee Manila laakiin gabi ahaanba gobolkani waa uu ka duwan yahay Japan caadiga ah ee la yaqaano caasimadii waaweynaa ee buuq ahaa ma laha ama astaamiin kale ee lagu yaqaanay Japan laakiin maadaama dhulkan yahay dhul xeeba waxaad arkaysaa un xeebaha quruxda badan leh iyo badaha buluuga ah iyo waliba sidoo kale geedka coconut oil-ka loo yaqaano xataa lahjada lagaga hadlo dhulka kale ee Japan jasiiradan way ka duwan tahay oo lahjad ka duwan ayaa lagaga hadlaa tusaale ahaan arigato oo weydiinayo waxay ku sheegayaan wax kale oo ka duwanba halkaan waxaad ka garanaysaa inay aad u kala duwan yihiin lahjada caadiga ee lagaga hadla Japan iyo jasiiradan lagaga hadlaa maadaama uu dhowdahay dhanka Philippines badanaa waxay iska eegin xeebaha iyo dhulka dalka Philippines sidoo kale jasiiradan waxa lagu xasuustaa waxyaabo kale oo aan ahayn quruxda ay leedahay waayo jasiiradan waxay ahayd meelihii ugu khatarsanaa ee beesiska militariga ee dalka Japan ay ku yaaleen dagaaladuna ay ka socdeen dagaalkii labaad adduunka markii Japan iyo Mareykanku ay isleynayeen kaasoo ugu dambeyntii kusoo gabagaboobay nukliyeerkii lagu dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki jasiiradan yarna waxa la sheegay inay ku dhinteen dad gaadhaya 150,000 oo shacab iyo militari bay isugu jira jasiirada ugu weyn ee qaybtan Okinawa lagu magacaabo waxa laftarkeeda lagu magacaabo Okinawa waana halka ay ku taalo magaalada caasimadda waa gobolkan ee Naha lagu magacaabo iyo waliba airport-ka jasiiradu sidoo kalena waa halka ugu badan ee dadka Okinawa ay ku nool yihiin oo tiradoodu gaadhaysa 1.5 milyan laakiin haddana iyadoo dadka inta ay ku nool yihiin magaalada aad bay u degan tahay sida uu ninkan sheegayo ninkan sababta ugu muhiimsan ee meesha yimid waxa weeye buu oranayaa maadaama Okinawa lagu magacaabo ama lagu sheegay inay tahay meesha adduunka ugu caafimaadka badan waxaan rabaa inaan ogaado waxa ka dambeeya iyo sirta ka dambaysa caafimaadkooga ninkan ilaa imika intii magaalada dhexmariyay wuxuu sheegay inuu arkayay uun dadadoodu waaweyn tahay oo lugeynaya qaar jimicsanaya qaar kale oo iska ciyaarta noo muuqata kelmadda centenary waxa loo isticmaalaa qofka da'diisu ay dhaaftay 100ka magaaladan Okinawa waxa laga helayaa boqolaal qof oo centenarian ah waxaan la kulmayaa islaantan oo iyadu dadka centenarianka ka mid ah da'deeduna ay 100 ka dhaaftay ilaa imikana duulaysa oo si fiican u nool waxaanay dhex joogtay gurigeeda ay nolol fiican isaga jirtay shaqooyinka gurigeeda looga baahan yahay oo dhan iyada ayaa kaligeed qabsanaysa cid u qabanaysa ma jirto da'deeduna 100 ka dhaaftay madaxweynaha dalka Japan waxa uu soo dhiibay maadaama da'deedu 100 ka dhaaftay certificate ama shahaado cadaynaysa inay 100 jir dhaaftay oo loogu hambalyeeyo will give this certificate. Wow! Congratulations! marka uu ninkani ku dhaasay sida dareemsa maadaama da'deedu ay 100 ka dhaaftay waxay ka odhanaysaa waa wax iska caadiya badanaa 100 waanu gaadhnaa waxyaabaha ay qabatay inay weydiinayaan waxayna ka odhanaysaa shaqooyinka caadiga ah oo dhan aan qabsada sida kaawiyada marya meedhashada cunto karinta sidoo kalena waxaa la yaabahaba inay islaantani soo iibsatay iyadoo da'daa jirta mashiinka murqaha lugaha lagu jimicsado iyadoo mashiinka si joogta u isticmaasho si ay murqaheeda ugu jimicsadaan
Wow, that's amazing. marka dambe ninkan waxaa loo keenayaa cuntadan waxaa laga arkayaa inay tahay 80% khudaar ama cunto caafimaad leh isagoo sheegay inaanay la yaab ahayn in magaaladani ay tahay magaalada ugu caafimaadka badan leh adduunka waayo waxaan ka arkayaa buuri cuntadeeda sidoo kale waxaa cajiiba in kaliya aanay sirta ku jirin cuntadooda laakiin ay isticmaalaan erey kale oo luuqadooda loogu dhawaaqo hara hajibu kaasoo la micno ah calooshaadu markay 80% dheragto waa inaad cuntada joojisaa 100% marnaba ha dhergin caloosha haddaynu u fiirsanana xeerkan ay ku dhaqmaan waa mid la mida kay diinteenu nafartay ee ah inaanad caloosha marnaba wada buuxin ee qaybna hawada aad uga tagto qaybna biyaha sababta sidan loo sameeyo iyagu sameeyaan waxa weeye caloosha waxay ku qaadataa 20 mirir si ay maskaxda fariin ugu dirto oo ay u sheegtay inay buuxsantay sida darteed adigoo aan caloosha aad u wada buuxin waa inaad joojisaa waayo calooshaada ma kala ogid inay buuxsantay iyo in kale sababtoo ah maskaxda inay fariinta u dirto waqti bay ku qaadanaysaa qoladana markay cuntada cunayaan xeerkii wayba dabaqayaan oo iyadoo aan calooshii buuxsamin ayay joojinayaan So they just like okinawa waxa aad uga baxa khudaar aad u fara badan iyo sidoo kale fruitis waana sababta cuntadooda ay tahay mid caafimaad leh jasiiradana gebi ahaan badankeeda waxa qariyay oo ka baxa beero kuwaasoo laga soo guro khudaar fresh iyo weliba fruitiskii marka warista ninkan beeraleyda ah ee isaga wax beerto laftirkiisana wuxuu sheegayaa in xagaaga iyo guga ay kala duwan yihiin waxay beeraan sababta ay beeraha sidan u badan ugu yeelaan okinawana ay tahay in caradeeda ay ka buuxaan minerals fara badan sidaa darteed ay ka baxayaan wax walba oo lagu beeraa sidoo kale guryahooda dhexdiisana waxay ka beertaanba caleemaha laga sameeya cabitaanada sida shaaxa gabadhan ayaana soo tusa islaantan oo gurigeeda uu ku yaallaba shaax oo kasoo gurasa kadibna shaax ka samaynaysa la cabo shaaxa ay caleemo kala duwan ka samaysay ayayna siinaysaaba ninkan sonkorta lagu darsanaya lagu soo dhigayana waa sonkor browna oo dhagax la moodaba laakiin waa sonkor she served it. She said eat it with it here. islaanta shaaxa u samaynaysa daadeedu waa 75 jir ninkanna wuxuu ku kaftamayaaba haddii aan geedkan amaba shaaxan maalin walba cabo dabcan cimrigeygu wuu dheeraanayaa haddaba dhanka kale dadka degan jasiiradan yar oo kinaawo lagu magacaabo inay sidan u caafimaad qabaan oo sidoo kale cimrigooduna u dheeraado cuntadooda keliya kama qayb qaadato laakiin sidoo kale waxay sameeyaan xarakaad fara badan oo mid ka mid ciyaaraha ugu caansan adduunka ee martial artiska ee karatega loo yaqaano waxaa lagu aasaasay jasiiradan oo kinaawo lagu magacaabo sidoo kale haddii aad daawatay filimka karate kid lagu magacaabo gebigiisaba waxaa lagu duubay jasiiradan okinawa ciyaartan waxay ugu horreyn soo caan baxday 1400 marba mar ka dambeysana caan bay noqonaysa oo la sii baranayay oo xataa sanadkii 2000 ciyaarta lagu furay olimbikadii Tokyo lagu qabtay waxay ahayd ciyaartan karatega lagu magacaabo Mariko to Kyuna. It's the most magnificent win. ninka laftarkiisu mar buu South Korea joogi jiray waqtiga wuxuu sheegay inuu isku dayo inuu black belt ka helo suunka madow laakiin talaalka laga ciyaariyay waxay ahayd logo oo kaliya halkan imika uu joogay Japan gacmo ayaa laga ciyaarayaa meeshan imika uu soo booqday ciyaartan lagu ciyaarayana xataa galaasi suuma ayaa laga qaadanayaa sidoo kale qaar kamid ah macallimiinta iyo dadka ciyaarayna uu weydiinaya waraysanaya odaygan ayaa kamid ah oo imika daadiisu 27 jir tahay ciyaartan wuxuu bilaabay markuu 50 jir ahaa 22 sano ayuu ku jiray macnaheedu markaa How many years have you been doing karate? sidoo kale marka laga tagay karatega dadka reer Okinawa waxay leeyihiin dhaqan kale oo lagu magacaabo Maui kaasoo ah in dad 5 qof ay isu urursanayaan oo isku imanayaan tusaale ahaan odayaasha kale si gooniyo iskugu yimaadaan badanaana way kulmaan haday noqonayso inay ciyaaraha wada ciyaarayaan haday wada tukaamaysanayaan taro ka caawinaysa in social life-kooda ama dad dhexgalkooda uu kor u kaco oo wanaagsanaado meelo badan ayaa ku arkaysaa Okinawa markaad joogto dad 5 ama koox iskula socda oo exercise wada sameynaya wax wada cunaya waxaanay baaritaanada cadeeyeen in qofka hadii social life-kiisu uu kor u kaco oo dad dhexgalka ku fiicnaado in sidoo kale caafimaadkiisuna uu fiicnaanayo oo daadiisuna ay cimri dheeraanayso isagoo tan cadeynaya u tahay in ninkani dadka waaweyn ee daadooda weynta ee uu la kulmayo badankooda ay yihiin dad furfuran oo social life-kooda aad u wanaagsan yahay Huh? Dangerous. haddaba dadkan da'dooda waaweynta ee ku nool meeshan Okinawa lagu magacaabo badanaa waa dad dhaqdhaqaaqooda badan yahay ciyaaraha ay ciyaaraan karatego kaliya kuma koobna laakiin ciyaaro kala duwan oo kale ay ciyaaraan sida uu ninkan imika duubay in aan arkayno dadkan qof walba shaqo qabanaya qof iska taagan ma jiro qof meel buu xaadhaya qof wuxuu nadiifinaya guriga qof hawshiisii nolol maalmeedkiisa soo haysta badankana dadkan waa da'doodu wada waaweyn tahay sidoo kalena ciyaaraha ay ciyaaraan wax kamid ciyaartan imika aynu jeednay bahalka hirinta la taagto kubadda ay lagu dhex ridayo oo kamid ciyaaraha ugu caansan ee dadka waaweyn ay ciyaaraan marka la joogo Okinawa Who's the winner?
haddaba ugu dambeyn muuqaalka gabagabadiisa ninkan waxa uu sheegayaa kadib markuu ku qaatay 3 cisho oo dhammaystiran jasiiradan Okinawa inuu ugu dambeyn fahmay ama uu ogaaday ugu yaraan sirta ka dambaysa in dadka jasiiradan ku nool ay yihiin dad cimrigoodu aad u dheer yahay maadaama qaabka ay u nool yihiin markuu u fiirsaday cuntada ay cunayaan iyo weliba caadooyinka wanaagsan ay leeyihiin aanay imika la yaab ku ahayn in jasiiradan ay ku nool yihiin dadka ugu da'da waaweyn adduunka dadka reer Okinawa jasiiradan ciideedu ay qaniga ku tahay macdanta ee khudaarta fiican ay ka baxdo waxay ugu nool yihiin si farxad leh oo caafimaad leh sidoo kale wuxuu sheegay inuu aad uga helay intii uu ku sugnaa jasiiradan maadaama meelaha kale ee adduunka dadku ay aad uga cabsadaan inay gaboobaan sidoo kalena cabsidaas ay caafimaad darro ku sababto jasiiradan dadka ku nool inay dadka adduunka hobisid ku yihiin oo iyagu aanay wax warwar ka qabin nolosha caafimaadkoogana ay ilaashtaan haddaba saaxiibayaal muuqaalkan haddii aad waxun ka faa'iideen waxaan idinka codsanaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay oo markii ugu horreysay aadna daawanaysa ay tahayna subscribe-ta noo saar aad baad u mahadsantiin